Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada janaalka Saliid aniga Ustaad Fays Maxamed Said Cumar. Waxaan halkan ku sharaxayaa sayniska maadada gabageliska. Ilaa waxaan sharaxaa cashir wuxuu gaarayaa sayniska ilaa 40, laakiin waxaan sharaxayaa ilaa 25 insha Allah. Qodobada ugu horeeya halkaas soo jeedid shuruudaha tartan shuruudaha sayniska. Maadada sayniska waa inaad qorto magacaaga, roll numberka, dugsiga iyo xarunta aad ka timid. imtixaankan waa sanadka 20 ilaa 2021 imtixaanka dowladda. waxaan ugu hormaraa qaybta gabageliska. Su-aasha koowaad waxay u dhacaysaa sida tan: waxaa la markaas cudurka duumada waxaa gudbisa markaas kaneecada kaneecada markaas nooca dhadiga ee ah markaas loo yaqaano ee agala jawaabta saxda ah ay tahay marka anopheles-ka. lambarka labaad cudurka jabtada ragga markaas waxa uu kaga dhacaa marka dumar ragga waxa kaga dhacaa marka jabtada xaraf waxa gala markaas ee taasoo ay tahay markaas kaala mareenka. lambarka saddexaad waxaa la markaas sawirka hoose waxa uu muujinayaa habka meesha banaanta buuxinaysa oo la markaas habka uu dhacayo. marka waxaa lu siilaa 4 option A B C D. waxaad ku dooranaysaa markaas waxaad ku dooranaysaa mid ka dooran jawaabta waxay noqonaysaa markaas waa D bacteria. lambarka afraad waxaa la markaas cudurrada soo socda la markaas midkee ayaan ku faafi karin oo la markaas hawada. jawaabtu sax waxay noqonaysaa markaas waa AIDS. AIDS hawada kuma faafi karo dhacaan kaliya ayuu ku faafi karaa qof AIDS qabo inuu soo qaado qofka dhiigga siiyo saas uu ku faafi karaa marka. lambarka shanaad waxaa la markaas cudurka waraabowga la markaas waxaa lagu xakameyn karaa la markaas in jawaabtu saxan waxay noqonaysaa marka waa A in lagu fogaado zinada. waxaan sii gudbinaa lambarka lixaad. fadlan haddii aad channel Saliid ku cusub tahay subscribe sar gambarka taawisi warbixin ku soo imtixaanka dowladda haddii aad noqoto fasalka 8 ama fasalka form 4. lambarka lixaad wuxuu noqonayaa markaas habka horka lagu bedelayo markaas neef waxaa loo yaqaanaa marka macnaha habka lagu bedelayo neefta waxaa loo yaqaanaa A waxaa ku qoran marka ubibax, B waxaa ku qoran dhalaalinta, C waxaa ku qoran xareedaha, D waxaa ku qoran marka karkarin. marka jawaabtu sax waxay noqonaysaa marka jawaabtu saxan waxay ku aadaysaa markaas afarkan midkood A B C iyo D midkood ay noqonaysaa waxay noqonaysaa sida tan xarafka ee taasoo ay tahay marka umibax. lambarka toddobaad waxaa la markaas boqolleyda biyaha macaanka la markaas laga helo la markaas dunida waa jawaabtu sax waxay noqonaysaa markaas waa D taasoo ay tahay markaas boqolkiiba hal ayaa laga helaa. lambarka sideedaad waxaa la markaas siyaabaha kala duwan ee loo isticmaali karo la markaas biyaha waxaa ka mid ah waxaa la markaas waraabin dhicis ah. waxaa kaloo dhahay marka daadinta la markaas biyaha faraha badan. C waxaa la marka in laga tago la markaas biyaha oo markaas furan. D waxaa la markaas digtoonow markaas biyaha. jawaabtu sax waxay noqonaysaa markaas waa A taasoo ay tahay marka waraabinta dhicis. waxaynu sii gudbinaa lambarka sagaalaad. lambarka sagaalaad sheeg xubinta soo saarta la markaas unugyada ee taranka la markaas dhadiga taranka midkii baa soo saar dhadiga marka. jawaabtu sax waxay noqonaysaa markaas waa B taasoo ay tahay marka ogxan sidii ah. waxaynu sii gudbinaa lambarka 10aad.
fadlan channelka hadii aad ku cusub tahay mar kale mar saddexan iyo kumanaan subscribe soo gabalka taa asxaabtaada soo share gareey si ay la socdaan imtixaanaadka hadii noqoto fasalka 8aad ama hadii noqoto fasalka form 4 maadadan waa saynis qaybta gabagaliska lambarka tanaad waxaa lahay bakteeriyada lamkaasi Neisseria gonorrhea waxa ay keentaa lamkaas cudurka lagu magacaabo jabtada ayaa keenta soo ay galis magjaabta ayaa galis waxa lamkaasi muddada uurka bini'aadamka ayaa waa 9 bilood taasoo noqonaysa marka biyo galis marka aad eegto lambarka 12 marka aad eegto sawirka hoose midkee ayaa muujinaya lambarkaasi midkee ayaa muhiim u ah photosynthesis-ka xilqalamka soo dhii taasoo tamka bakteeriyada lambarka 13aad waxaa lambarkaasi muddada ay halkaas shimbirtu ku dul fadhiisata lambarkaasi ukunta ayaa la yiraahdaa inay tahay marka taasoo tamka jawaabta ukun dilaacid lambarka 14aad maadada halkaas muddada hooyadu halkaas ilma galeenka lambarkaasi ay ku sidaa lambarkaasi ilmaha waxaa la yiraahdaa jawaabta xilqalamkaas waa taasoo lagu magacaabo markaasi uurka sidid bakteeriyada raha lambarkaasi bacriminta raha waxa ay kala dhacdaa lambarkaasi ay taasoo tamkaasi dibadda jirkooda waxaan gala lambarka 16aad maadada sayniska fadlan hadii aad ku cusub tahay channelka subscribe sar gabalka taawo lambarka 16aad wuxuu noqonaa marka waxaa lambarkaasi cudurka lambarkaas oo kasoo gudba lambarkaas qof una gudba qof kale waxaa loo yaqaanaa waxaa galis jawaabta waa taasoo ay lambarkaas cudurrada la isqaadsiiyo lambarka 10aad waxaa lambarkaasi caleenta waxaa ku jira lambarkaasi maado kiimika ah oo lagu magacaabo jawaabta xilqanaysa marka waa taasoo ay lambarkaasi caleesha cagaarsadan lambarka 19aad ayaan u gudbeynaa mid waxaa gashay cagaarso ah oo ah lambarka 19aad wuxuu dhacay sida tan waxaa lambarkaasi neefsashada lambarkaasi labaad silsiladda lambarkaasi cuntada sawirkeeda lambarkaasi hoose ku muuqata waa xilqada lambarkaasi cawska u ah maska raha waxaa ku liisinkaasi galayga jawaabta sax noqonaysa waa C taasoo ay tahay markaasi raha lambarka 20aad waxaa lambarkaasi dash waa xaaladda gibilka lambarkaasi ayaa lambarkaasi meeli leedahay muddo gaaban waxaa jawaabta lambarkaasi waa cudur noqonaysa taasoo ay tahay cilmi gooreed lambarka 21aad waxaa lambarkaasi kulbeega lambarkaasi waa qalab lagu cabiro meesha ay banaan tahay jawaabta sax noqonaysa markaas waa heerkulka waxaa galis xarafka D waxaa lambarkaasi lambarka 22aad halbeega lambarkaasi lagu cabiro hawsha waa jawaabta sax noqonaysa markaasi waa D taasoo ay tahay markaasi joule qof ayaa waxa uu kor u qaaday sanduuq joog ah lambarkaasi 2 mitir haddii lambarkaasi xagga lambarkaasi u isticmaalay la'egyada lambarkaasi 25 newton haddaba xisaabi hawsha lambarkaasi uu qabtay jawaabta sax noqonaysa markaasi hawsha uu qabtay waa taasoo ay tahay markaasi 50 joule waxaa lambarkaasi isha waxaa la dhaqaajisaa lambarkaasi oo isla markaana halkaas ku haya lambarkaasi noqon taasoo ay tahay markaasi maraqa halkaas waxaa inoo eg marka waxaan isu gudbeynaa lambarkii 25aad lambarka 25aad waxaa lambarkaasi xoogga dul fula lambarkaasi wiilka waxaa la yiraahdaa markaasi jawaabta noqonaysa markaasi waa aragga